xafiiska Jubbaland ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa waxa uu soo qabanqaabiyay xaflad lagu soo dhaweynayo baarlamaanka cusub ee Jubbaland sidoo kalena lagu soo dhaweynayay agaasimaha guud ee caafimaadka ee Jubbaland Dr. Ahmed Sadiq. xafladan ayaa waxa lagu qabtay faras magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota hotelka caalamiga ee Green Hotel. xafladan ayaa qadka telefoonka waxa uga soo qayb galay madaxweynaha Jubbaland Axmed Mudan ayaa waxa uu mahadceliyay dhammaan jaaliyada Jubbaland ee joogta gobolka Minnesota. sidoo kalena waxa uu sheegay in iminka baarlamaanka uu dhameystiran yahay shaqo badan ay u taalo dalwanaha ajiyo oo dogino baxow daruur caafimaad ya ubaaxi dilaacayo dugsi baata ay dhaxan looga hooyda diiba sidii aynu uga caawin lahayn aynu wax uga qaban lahayn sidoo horumarin lahaa caafimaadka Jubbaland. waxaan leeyahay waxaad noqoteen milestone cusub oo dhameystiray geedi socodkii gobolka Jubbaland maamulkii Jubbaland iyo baarlamaankiisii midna waa la sugayaa soo jira ma noole qarni walba uu socon safna uu ka daba dhalan hadba kooda sare kaca waxa sahayda uga taga kii hore u sagootiyay dadka seexda mooyee sumadii awow iyo sinjigaas noolaan waxa colaadahan dhacaye naga dhamaan waayay iyo Soomaalida is dhameysay dhabtii haadku ka dhargaayo ee wiilba kii ugu dhawaa ilka dhacadiisay dhaqaali iyo waxay maal dhaqdeen dalal kale u dhoofshay Jubbaland ay yeelatay xildhibaano iyo baarlamaan taasoo dhameystiraysay dowlad goboleedkii Jubbaland ee Soomaaliya. When you learn, you grow, and then you expand your horizon. Education is something that no one can take away from you. It is yours to keep forever. baarlamaankan aad ka loo hadlayo barnaamij baa la magacaabay why we interested maxaan u xiiseynaa why waxaan idin sheegayaa baarlamaanka hadda la magacaabay shaqadeeda aniga asay ku xiran tahay baarlamaan la-aantiis aan ma shaqayn karo yani waxaan ka wadaa shaqa ma socon karto Jubbaland inaan la socoteen dhamaystirka baarlamaanka oo hay'adii sharciga ahayd ka dhimay dhamaystirka maamulkii muddo dheer qaadatay ilaa 2 sano hadda aan la jiitay waxa ugu badan ay ahayd dib u heshiisiin iyo gobolada ugu dhulka badan Soomaaliya Soomaaliya ugu badan xabadnimada sayidkeeda dhulka ugu badan ay ahayd dadku waxay leeyihiin ay samaystaan laakiin waa adduunka Zakaria Adan Universal TV North America.